Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay bam aan caadi ahayn u samaysay xiisadda badda Mediterranean ku haysata iyada iyo dowladda Gariiga ee reer Yurubtu ay dabada ka riixayaan. Waxay sheegtay inay bam aan caadi ahayn suubsatay. Bamkan ayaa lagu sheegay inuu qarxi doono dhul ka badan ilaa 100 hektar. Waxaana la sheegay bamkan in dheeldheel lagu qarxi doonin, balse haddii dagaalku uu xumaado dagaalku uu si wanaagsan u bilowdo, in bamkan la qarxi doono. Waxaana la fili doonaa in 500 milyan ciidanka dowladda Turkiga halkaas lagu sii daadgurayo inay ku baabi'i doonaan. Bamkan qarxintiisa waxaa la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan diyaaradaha hawada duula iyo kuwa maraakiibta quusta, kuwa biyaha saaran ay hal gantaalo iskula dhifi doonaan saacad. Waxaa la sheegay ilaa 100 gantaal lagu dhifi doono ka bacdina uu qarxi doono. Waxaa la sheegay firirkiisu inuu gooyi doono dhulka. Waxaana la filayaa in halkaasi ay masiibo ka dhici doonto. Turkiga ayaa ah waddan quwad leh oo Muslim ah, waxaana la sheegay Turkigu inuu leeyahay biyaha Mediterranean ee halkaas baddaas, wuxuuna sheegay in biyihiisa lagu farageli doonin. Dowladda Gariiga oo iyaduna haysata hubka wax gumaada, balse aan Turkiga u babac dhigi karin, waxaa gadaal ka riixaya wadamada reer Yurub. Turkigu wuxuu cashar u dhigay markab isa soo qaaday uu leeyahay waddanka la yiraahdo Jarmalka, waxaana si daqiiqado kooban ay ciidamada Turkiga ee ilaaliya badda ay ku furfureen saacado kooban, iyadoona halkaasi markabka birihiisa la kala dhilqiyay. Halkaas ay ku quusteen dowladda Jarmalka. Bamkan ayaa wuxuu ku xiran yahay hadda markab biyaha quusa, waxaana Arbacada soo socota si toos ah loo soo bandhigi doonaa warbaahinta caalamka iyo midda Turkiga. Balse wargeys ayaa warkan si hoose u gudbiyay, iyadoona sawirkiisa la soo qaaday. Halkan wixii ka soo kordha iyo bamka ama ugu dambeeya halkan kala socda YouTube-ka Rungood Media. Waxaan ka codsanaynaa asxaabta sharafta iyo qiimaha leh inaad share iyo like iyo comment aad siisiin soo u faafo oo u gaaro kumaan qofsan. Fadlan subscribe-kiisa badiya aad buu u yaryahay boggu. Waxaana idin soo tagi doonaa wax walba oo halkan aad ka heli doontiin. Asxaabta sharafta waxaan ka codsanaynaa share iyo like iyo comment inaad badisiin. Mahadsanidin.